kulankan uu shir gudoominayay Ra'iisul Ku-xigeenka Xukuumadda Federaalka ee Soomaaliya Mudane Maxamed Cumar Carte ee ku saabsan horumarinta iyo dib u dhiska kaabayaasha dhaqaale ee dalka ayaa waxaa ka qayb galay wasiirada dowladda federaalka ee xubinta ka ah SDRF, xubno ka socday dowlad goboleedyada Puntland, Galmudug, Jubbaland, Koonfur Galbeed iyo Banaadir. Waxaa kala goobjoog ka ahaa wakiilada beesha caalamka ee Soomaaliya iyo wakiilada dowladda Soomaaliya ka taageera dhanka horumarka. Shirka oo ah mid bilaa oo bishii mar la qabto ayaa diiradda lagu saaray waxyaabo u qabsoomay dowladda federaalka ah iyo dowlad goboleedyada. Kale wasiir ku-xigeenka qorsheynta xukuumadda Soomaaliya Mudane Cabdullaahi Sheekh Cali Qaluucow ayaa hoosta ka xariiqay in dowladda federaalka ee Soomaaliya ay ku tallaabsatay dhinacyo badan oo horumar ah isla markaana ay shirka ku soo bandhigeen qorshaha qaranka. Ra'iisul Wasaare ku-xigeenka Xukuumadda Federaalka ee Soomaaliya Mudane Maxamed Cumar Carte oo kulanka soo xiray isla markaana u waramay warbaahinta qaranka shirka kadib ayaa ka faahfaahin ka bixiyay waxyaabihii shirka looga hadlay oo ay ka mid tahay qorshaha qaranka oo ay soo diyaarisay wasaaradda qorsheynta. Shirkeennan maanta oo ah shirkii bilaa ahaa New Deal-ka ama maxaa la yiraahdaa wada shaqeynta caalamka ay ku taageeraan Soomaaliya shirkaas oo bil walba la qabto. Waxyaalaha ugu muhiimsan ee laga hadlayay waxaa ka mid ahayd sidii in loo soo bandhigay nuqulkii ugu dambeeyey National Development Plan-ka ama qorshaha qaranka 2016 ilaa 2019 oo 3 sano soo socotaa. Runtii muddo badan laga soo shaqeynayay oo laga soo shaqeynayay sanadii markii ugu dambeeyey oo wasaaradda qorsheyntu ay waday iyadoo wada tashi fara badan la sameysay dhammaan dalka oo dhan. Ra'iisul Ku-xigeenka Xukuumadda Soomaaliya ayaa ka tacsiiyay shacabka iyo askartii ku geeriyootay shaqaaqadii shalay ka dhacday degmada Afgoye ee gobolka Shabeellaha Hoose, waxaana uu Alle uga baryay kuwa ku dhaawacmay inuu caafimaad degdeg ah siiyo. Horta marka ugu horeysa waxaan jeclahay fursaddan inaan marna tacsi ama diro dadkii ku geeriyooday Allah u naxariisto. Shaqaaqadii shalay ka dhacday nimankii ay cadowga ay soo weerareen Afgoye, waxaan iyadana tacsi u direynaa dhammaan ciidankii iyo dadkii shacabka ah halkaa ku dhintay. Ilaahay naxariis jannaha siiyo. Dadkii kale dadkii ku dhaawacmayna sidoo kale in Ilaahay caafiyo oo dhaqso caafimaad degdeg ah oo sariica Ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu siiyo. Mudane Maxamed Cumar Carte ayaa hambal iyo bogaadin u diray shacabka iyo madaxda cusub ee dowlad goboleedka Hirshabeelle. Baa la yiraahdo inaan hambaliyo u diro dhismihii maamulka doorashooyinkii baarlamaanka ee dhacay, kii madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka, speakerkii ama afhayeenkii baarlamaanka intaba inay runtii si wanaagsan oo maxaa la yiraahdaa cad ay u dhacday. Dadkuna maxaa la yiraahdaa amniguna uu intii uu meesha socday shirku iyo wixii oo dhan amni sugan u noqday. Wax aad iyo aad loogu farxo weeyaan. Marka waxaan jeclahay inaan madaxweynaha cusub Cali Cabdullaahi Cosoble iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo speakerka iyo dhammaantood inaan hambalyo badan halkan uga soo jeediyo iyo shacbiga labada gobol. Maxamed Macalin Xasan Waydka, Telefishinka Qaranka, Muqdisho.